العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها الإخوة المؤمنون khudbadeena waxaan ku gaabsanay oo ku soo qaadanay inaan wixii Ilaahay noo dhib yareeyo ka sheegno isaguna aqli celino aayad quraan ah laba aayadood oo quraanka kamid ah oo waxa ku jira ay yihiin cilmiga Ilaahay tabaaraka wa taala suurat an-nahl magac waxa looga dhigay an-nahl nahlina waa shinnida laakiin suuradaas waxaa lagu sheegay makhluuqaadka aynu naqaano qaarna magacyadooda la sheegay qaarna waa la ishaaray waxa makhluuqaadka ay adduunkan inooga muuqdo oo dhan qaarkoodna gaar ahaan kuwooda waaweyn magacoodii baa la sheegay qaarkoodna waa la ishaaray waa la sii sheegay oo si jamaca iyo si jumlo ah baa loo sheegay waxyaabaha ugu waaweyn oo weliba suuradda lagu bilaabay waxaa ka mid ah khabar dhacdo bini aadamka sugaysa oo bini aadamka ka dambaysa oo la hadal hayo dhacdooyinka ugu waaweyn waa qiyaamaha waxaa kaloo lagu sheegay suuradda bilowgeeda khabar iyo hadal run ah oo bani aadam loo sheego kii ugu weynaa oo waxyiga ah in Ilaahay xaggiisa fariin ka timaado intaas kadibna waxaa la sheegay abuuritaanka insaanka oo runtii dhacdo weyn ah oo xataa markii aadam la abuuray oo nafta la geliyay adduunka oo dhan la amray inay u dabaaldegaan samaawaadka iyo arlooyinka xidigaha qoraxda dayaxa wabiyada roobka daruuraha wax walba oo bani aadamku uu ka faa'iideysanayo adduunkan yaala hadday beero yihiin hadday xoolo yihiin hadday wadooyin yihiin hadday guryo yihiin noocyada kala duwan ee guryaha iyo waxyaabaha laga sameeyo wax walba oo bani aadam uu fahmayo oo dhan baa suuradda lagu sheegay ambiyadii Ilaahay oo dhan baa si jumlo ah loogu sheegay iyadoo weliba la tilmaamay qof bani aadama oo wadada ambiyada soo marin adduunka inuusan khayr kala tagayn khayrna ku noolaanayn waa la sheegay inkastoo hal nebi magaciisa lagu sheegay suuradda aakhirkeeda intaasoo dhan iyadoo suuradda lagu sheegay haddana magaca suuradda waxaa laga dhigay makhluuqaadkii suuradda lagu sheegay kii ugu tabar yaraa ama xagga bidhaantaba ugu yaraaba shinnidu fartaada xubinta hore kama weyna waxaanoo samaawaat ah iyo waxaanoo bashar ah oo suuradda lagu wada sheegay oo badihii lagu sheegay wixii badda kor marayay la sheegay waxaasoo dhanoo la sheegay magacii suuradda waxaa laga dhigay makhluuqii ugu muuqaal yaraa xagga bini aadamku say fahmayaanna ugu tabar yaraa yaa magacii suuradda laga dhigay sirta ku jirtaa marka maxay tahay ilaan qur-aanka shinnida lagulama hadlayo qur-aanka ma shinnidaa loogu caqli celinaya ma shinnidaa loo soo dejiyey maya qur-aanka bini aadam baa loo soo dejiyey rasuulka qur-aanka lagu soo dejiyey waa bini aadam dadka uu ka dhashayna waa bini aadam
maxaa loo keenay marka shinnida iyadoo weliba la ammaanayo? qaabka loo keenay waa qaab ammaan ah oo la sharfayo, oo markii aayaddana lagu bilaabay inuu ilaahay toosiyey oo ilaahay uu ku hanuuniyey oo ilaahay qalbigeeda uu geliyey. aayadda dhammaadkeedana waxaa lagu sheegay dadkiinaan qur-aanka lagula hadlayo waxa uun fahmaya waxaan la sheegayo ciddii caqligeeda ka shaqaysiinaysa. haddii ilaahay yidhaahdo jumcada soo socotaa waxaan barbar dhigi doonaa haddaan nool lahay shinnida makhluuqaad la mid ah xagga tabarta iyo xagga muuqaalka iyo sida ay uga duwan tahay iyo sababta kala duwaysa. ilaan shinnidu waa waxyaabaha yaryar ee duula, daqsiguna waa waxyaabaha yaryar ee duula, soo maaha? waa isku nooc xagga muuqaalka. maca daalika daqsigana adduunku waxay u diyaariyaan intaasoo bilyan oo lagu dilo sanad walba, iyadana maxaa loo diyaariyaa intaasoo bilyan oo iyada lagu xanaaneeyo oo lagu nooleeyo. jumcada ma isbarbar dhigi doona, hadda halkaa ugama jeedo. haddii ilaha yidhi waxyaabaha laga faa'iidayo in shinnida lagu soo daro qur-aanka iyo kalaamkii ilaahay iyadoo weliba qaabka loogu soo daray uu yahay qaab la ammaanayo oo la sharfayo, waxaa ugu waaweyn kow shinnidu iyadoo tabartaas leh oo intaad aragtay la-eg baa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu farayaa inay qaadato asbaabtii ay sharafteeda ku ilaashan lahayd, oy adduunka wax kula qeybsan lahayd, oo jiritaankeeda ay ku ilaashan lahayd, oo dadnimadeeda iyo inay wax noqoto oy dad wax la qeybsato. ma aha inay shinni kale wax la qeybsato, inay dad wax la qeybsato. weliba waxay gaadhaysaa inay dadku gartaan inay wax jiro tahay, kadibna ay oggolaadaan inay tabaadulul masaalix sameeyaan, oo iyaduna ay wax keento laga faa'iido, dadkuna iyada ay wax siiyaan ay ka faa'iido. heerkaasaa la gaadhsiiyey. danta laynoogu sheegayaa waxaa weeye in aynu ogaano makhluuqaa yar ee daciifka ah haddii la amray oo loo sheegay meeshii ilaahay uu ugu talagalay ee ilaahay adduunka uu ka siiyey ee uu u tilmaamay, waa risqi ilaahay wey. in meel lagu dejiyo risqigay ka mid tahay. innaga inaan geeska africa degannahay waa risqi ilaahayna siiye wey. meel kale oon u guuri karno oo intaan sheegano laynoo oggolaanayo oo lagu qancayaa ma jirto. si kasta oon u bedelano, si kasta oon u orodno, meesha laynoo aqoonsan yahay waa halkaas. ilaahay marka wuxuu faray inay shaqo ka bilowdo meesha loo tilmaamay inay deegaan ka dhigato oo magaceeda lagu calaameeyey, inay marka hore ka dhigto meel ku habboon in lagu noolaado. waxaana loo sheegay inay saalix u tahay oy ka helayso awoodna ay u yeelan doonto, ilaahay uu ku garabgelayo qaabkay saalix uga dhigi lahayd iyo qaabkay ugu noolaan lahayd, inuu diyaar u yahay, uu ku jiro oy suurtagal tahay. leanna ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa wuxuu u abuuray inay noolaadaan wixii ay ku noolaan lahaayeenna iyagoon la abuurin buu sii diyaariyey meel kastoo ay joogaan. waxaa la yidhi buuraha deg, geedaha korkoodana deg, dhagxaanta deg. bani aadamku meelaha ay kuu samayn doonaanna guri ka dhig. laakiin goormaa bani aadamku ay meel u samaynayaan? waa markay iyadu dad maxaan ku dhaha ay oggolaato wixii ilaahay tabaaraka wa tacaala u jideeyey, oy ku qanacdo, oy shaqadii qabato, oo ay meel ay degto bani aadamka ka hor ay ka hormariso meelaha kale. oo saddexda meelood ee la amray way ka horeeyaan waxyaabaha bani aadamku ay u samaynayaan. marka hore bani aadam isku halayn mayso,
dhulka ilaahay ee buuraha iyo geedaha bay ku hormaraysaa. shinni markaan soo qabanayno xageen ka keenna innagayna lama degana, buurahaasaan u raadinaa kuwa dadka dhaqaalaynaya, geedaha laga dhex raadiya. markaas kadib baa lagu khasban yahay in xaafado dhan intii loo sameeyo oo guryo loo sameeyo oo aag dhan loo xidho in siday ugu noolaan lahayd loo diyaariyo. marka waxay ku hormaraysaa wax bani aadamka inaysan u baahanin u suurto gelinaya, markaasay nolosheedii dabaranaysaa. kadib baa waxaa la faray dhulkaa lagu qaybiyey iyo meelaha lagu tilmaamay intaad fadhiisato kuma noolaan kartid, wax lagugu talagalay baa ku dhex jiree ka shaqayso. uma kulii min kulli thamaraati baa li, wax alla wixii geedeed aragtid midhihiisa iyo caleentiisa iyo kulli isticmaal, xalaal buu kuu yahay, ilaahay baa kugu toosinay. oo markaa cun, markaad guryaha samaysanaysid iyo markaad buuraha tegaysid iyo markaad qaraab tegaysid intabana sidaa iyo sidaa iyo sidaa yeel. wadooyinkii aad guryaha ku dhisi lahayd, wadooyinkii aad buuraha ku tegi lahayd, qaabkii aad maxaan ku idhaahdaa bani aadamka waxa kula qeybsan lahayd, qaabkii aad waxa aad cunta aad u qaabayn lahayd, sidii warshadaadu noqon lahayd. iyo hadhow markaad qaraab tegtid ilaa waxaad tegaysaa qaaradka qaarad baa isaga gooshaysaa, qaabkaad u soo laaban lahayd oo gurigaaga ugu soo laaban lahayd annagaa kaa kafaalo qaadnay baa bani aadamkana sidaa un baa lagu yidhi. bani aadamka laftiisa sidaa un baa lagu yidhi. adduunka u qaraab tagaa la yidhi, wax badanood awood u lehed inaad qabsataan baa ka buuxa. kadib baa waxaa la yidhi nacfiga ilaahay uu ku siiyey wixii adigu aada ka qaabaysid dariskaaga wax ka sii. shinnida waad aragteen ilaa iyada colaad lagu bilaabo, xataa markii malabka laga qaadanayo in iyada la colaadiyo mooyeen, haddii heshiis lagu bilaabo way iskala kaa joogaysa ilaa malabka aad ka dhamaysad. laakiin haddaad garaacdid meeshay ku jirto ood buri hareeraha kala martid oo dab ku dhex ridid oo qeyb ka mida aada laysid, way tirsan tahay. hamoodin shinnidu inaysan qaarkeed qaarka kale u tirsanayn, way isu tirsan tahay. waa la tabayaa midka la dilay, waa la arkayaa mid dhintay. waxaa la yidhi hadday kula noolaadaan oo iyagu ay kuu diyaariyaan meeshaad ku noolaan lahayd, nacfiga kaa soo baxaya adigu aada diyaarisay, darisnimada iyo adduunka noloshaadu inay kuu sii jirto darteed ha hilmaamin baa lagu yidhi. intaasoo dhan kadib baa alle wuxuu yidhi inna fii dalika la aayatan liqowmin yatafakkaruun. innagu mashinidan ka caqli yarna, meeshaan uga jeednaa waa halkaas. innagu shinida maan ka caqli yarna. imise sano ayaynu raadinaynaa inaan dowladnimo ku heshin. intaynu iskhilaafsanayn ee dowladnimada aan raadinaynay imise shay baa inaga burburay. xaggeen ka joognaa hadda? aragtida bani aadamka adduunka aan kula nool lahay inaga rumaysan yahi waa noocee xageed ku aragtay intaad adduunka wax akrinaysa ama aada maqlaysa, xageed ku aragtay mujtamac meel degan oo maalin walba loo shirayo sidii ay dowlad u samaysan lahaayeen oo lacagtii la siinayo oo haddana heshiin la? xagee ku aragtay? xagee loo socdaa marka? waa khudbo jumce oo aan wax walba la tilmaami karin, laakiin qeybta dhiman iyo shinnidan inaan barbardhig ku samayno makhluuqaad iyada la mid ah, sida uu u baaba-ay oo adduunka uga tirtirmaya sanad walba, iyaduna weligeed ay u jirayso, iyo sababaha keenay qeybta inoo dhiman. haddii ilaahay yidhaahdo khudbada dambe baan kusoo qaadan doonaa haddaan nool lahay, si aanaan waktiga haddaabaan qeyb ku darsannay. uma saluu wasalimuu calى nabiyi اlamiin imtithaala liamri اllahi tabaaraka wa tacaala
إن الله وملائكته يصلون على النبي